fiidnimadii 26 January 1991 iyadoo ururka SPM ay Muqdisho kaga soo siqayso dhinaca koonfureed SNMna ay qarka ula saaran tahay inay dul maraan ciidamadii aan cidina u maqnayn ee dawladda ayaa jabhadda USC ay xoogga saareen sidii ay Siyaad Barre uga salkicin lahaayeen filla Soomaaliya dagaal socday dhowr saacadood kadib USC waxay la wareegtay filla Soomaaliya iyo Muqdisho oo dhan halkaasina wuxuu ku soo afjarmay 22 sano oo xukuumadda Maxamed Siyaad Barre ay talada Soomaaliya haysay haddaba maxaa keenay burburkii dawladdaasi Professor Maxamed Cabdi Gandi waxa uu kamid ahaa aqoon-yahanada xilligaasi ku sugnaa dibadda Soomaaliya wallahi horta markii dagaalkii tababan u dhacay waxaa jiray maaragtay mar walba oo dagaal ay dawladda gasho wax badan oo adag baa furfurana maaragtay marka dagaalkii baa la galay dagaalkii waa laga soo noqday inqilaab baa dhacay inqilaabkii waa fashalmay inqilaabkii markuu fashalmay waxaa timid in la kala irdhoobo waxaa bilowdeen maaragtay jabhado oo qabiil ku salaysan wadamada dariska sida Itoobiya kala la tagay dagaal baa dawladda Soomaaliyeed lagu soo qaaday iyagiina dagaal bay qaadeen marka Maxamed Siyaadna controlka xoogga ah uu dawladda ku hayay way yaraatay oo uu dabcay wuxuuna u dabcay isaguna in loo jiito dhinaca marka qabiilka marka waxaa dhalatay marka dawlad more or less totalitaire ah baa dhalatay oo aad moodo awoodii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii iyo kulli inuu gacan kaliya u galay marka taas waxa ay keentay marka wadankii inuu burburo Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsanaa saraakiisha hogaaminaysay dagaalka SNM la gashay xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ayaa isaguna muddada dheer ay xukuumadda militariga talada dalka haysay la xiriirinaya sababihii marka horeba keenay inay xukunka qabsadaan militarigu sanadkii 1969 dawladdii militariga hay'adda Siyaad Barre hogaaminayay waxaan filayaa dhowr qodob oo suurtageliyay inay muddada inta la dalka maamulaan marka hore waxay dhaxleen hay-ada dawladeed ama institutions dawladeed oo ay abuureen dawladihiina gumaysan jiray ee reer Yurub oo aad u dhisnaa oo duubintoodu muddo dheer ay qaadanayso oo institutionskaasoo awoodooda lahaa laba markii ay meesha yimaadeen dadku iyagoo ka niyad jabay dawladii shicibka ahaa ee ka horreeyay 10 sano ka horreeyay oo aad isbedel loo doonayo berigaana Afrikada ciidamadu ay ahaayeen maaragtay wax dee la jeclaa ciidamada inqilaabyada iyo generaalada iyo dawladaha ay qabsan horumar laga filayay iyadoo Soomaalidu indhaha ku sii haysay raggii masalan Jawaar Cabdinaasir oo kale iyo rag ciidamada oo dee meelo badan qabsay dalka Carabta ayay dadku muddo si niyada u taageereen qolada marka shaqaysatay militariga laftoodu sanadii hore waxay keeneen barnaamijyo aad dadku raacay oo aad oo taageero maaragtay barnaamijyo fiican muddadii dhexe markii barnaamijyadaasi ay leeceen waxa soo galay meeshii oo gacan xoog la siiyay midowgii Sovieti dawladda Ruushka ee weynayd waxay ka taageertay xagga ciidanka xaggii maaragtay nabad sugidda muddada halka markuu marayo waa kii dadku in badan shuuciyada iyo waxa diiday oo dadku ay ku soo jeedsadeen waa kuwa wadada hadda jiray la leen jiray markii uu soo baxay in laga hor yimaado oo markaa ay tobanyo sano ama dhowr sano ay marayaan Siyaad Barre waxa ay la noqotay si uu isaga aamusiyo cadawga gudaha waa kii weerarka Itoobiya ku qaaday oo runtii weerarkaasi micnihiisu waa inuu ka jeediyo dadka dhibaatooyinka gudaha oo Soomaali weyn oo sawiro waa tii caadifada dagaalka lagu galay intii 78kii dagaalka laga soo noqday ee ka dambeysay waxay ahayd dawlad sii dubaysa oo maalin aan maalin ku daray oo meel waliba sii burburaysa ayuu ahayd ilaa 1990 dhicitaankii militariga kadib rajo wanaagsan ayay qabeen shacab badan oo Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan Professor Maxamed Cabdi Gandi ayaa ka waramay rajadii jirtay kadib dhicitaankii xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre wallahi rajada jirtay aad iyo aad bay u weynayd dadkuna waxay islaayeen maadaama jabhadahan iyo xukuumaddu dagaal muddo dheer socday oo 10 sano ka badan ay ku jireen haddii Maxamed Siyaad oo hadda meesha uu ka baxay oo uu iska tagay wax waliba caadi buu noqonaa waxaa jiray dadaalo fara badan oo banaanka iyo gudaha labadaba ka socday in la isku dayo in heshiisiin ay dhacdo in la isku dayo maaragtay waxyaabo fara badan baa socday dadkuna waxay islaayeen dhibaatada faraha badan ee la soo maray haddii markaas Maxamed Siyaad maarta xukunkiisa uu ka tago meesha waxa imaanaysa dadku inay isfahmaan laakiin nasiib darro taa ma aanay dhicin dagaaladii sokeeye caadiga aan naqaanay sheekadiisu aanay dhamaanin halkaas ka bilowdeen kadib haddaba dhicitaankii xukuumadda madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaa dalka Soomaaliya uu galay jawi cusub iyo xaalad siyaasadeed oo aan la saadaalin karin
tallaabadii siyaasadeed ee ugu horreysay ee ka dhacda magaalada muqdisho waxay timid 28 janaayo 1991 oo ku beegnayd 2 maalmood un kadib burburkii dowladdii maxamed siyaad barre. xubno ka tirsan ururkii United Somali Congress USC iyo qaar ka mid ah saxiixayaashii bayaankii 1990 ayaa ku kulmay magaalada muqdisho, waxaana kulankaasi ka soo baxay magacaabista madaxweyne ku meel gaadh ah. waxaana xilkaasi loo magacaabay ganacsade caan ah oo isla markaana ka mid ahaa saxiixayaashii bayaanka iyo ururka USC. waa Cali Mahdi Maxamed. Cali Mahdi Maxamed waxa uu VOA-da u sheegay in qasadku uu ahaa inuu xilka hayo muddo 1 bil oo kaliya kadibna la qabto shirweyne qaran oo lagu soo dhiso dawlad Soomaaliyeed. wallahi magaa waxay ku timid markii dawladdii ay burburtay, dawladdii madaxweynuhu ka baxay caasimadii, waxaa fadhiistay 100 odayaal Soomaaliyeed, waxgarad Soomaaliyeed, aqoonyahan Soomaaliyeed. waxaa la isla soo qaaday qodobo badan, ma guddiyaa la dhisaa, ma dawlad ku meel gaar ah oo ayaa la dhisaa oo gogol fidisa. go-aankii odayaashii 100 ahayd waxay noqotay in la dhiso dawlad degdega si loo baajiyo firaaqa loo buuxiyo. dawladdaasuna ay ku dhawaaqdo waktigii shir la iskugu yeeri lahay ururada hubaysan ama Soomaali weyn la iskugu yeeri lahay. sidaasaana aniga laygu doortay. maar allaala maalintii lay magacaabana maalinkii ku xigay waxaan soo jeediyey baaq aan u soo jeedinayo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ururadii markaa jiray, oo aan leeyahay bisha Febraayo 28 ha la iskugu yimaado muxuu ahaa shir magaalada Xamar si loo doorto dawlad Soomaaliyeed ee ummadda gaarsiisa doorasho xura. waa nasiib darro, waa ma dhicin shirkii in la iskugu yimaado, ma dhicin. waa gartay markan hore lagu dooranayo 28 janaayo waxa lagu doortay waa muddo 1 bil ah Soomaa oo ururada la isku yeeriyo dawlad lagu dhisay ayay ahayd. bes inaan gogoshii aan u dhigo ururadaas ayaa lay magacaabay aniga. balse doorashada Cali Mahdi waxaa ka soo horjeestay badi jabhadihii dagaalka galay iyo xataa siyaasiyiin kale oo qaar ka mid ay ahaayeen saxiixayaasha bayaankii manifesto. Jaamac Cali Jaamac ayaa sharaxaya saluuga laga qabay doorashada Cali Mahdi. taa iyada ah haddii ay ahayd in la bedelo talis lagu tilmaamay inuu mid guracan yahay, mid kasii guracan haddii lagu bedelo iyadoo ruuxeeda waxay leedahay inteeda ama waaba ka liidataa. marka waan qabaa waxay ahayd in laysu yimaado wax ku meel gaara in lasii sameeyo, guddi ku meel gaara in lasii sameeyo oo maamulkii dalka si uusan gacanta uga bixin sii haya. markaas dadkii mataqaan ama jabhada ha noqdaan ama siyaasiyiin ha noqdaan ama dadkii dagaalada soo wada galay oo in muddo kusoo wada jiray in laysu wada yimaado, laga wada tashado oo markaa go-aan midaysan la qaato ayaa aniga ila qumanaa. Cali Mahdi waqtiga la doortay markaa 1 bil bay ahayd, isaguna wuxuu ku baaqay bil ka bacdi shirweyne qaran in la isugu yimaado dadku ay wada doortaan. marka bil ma badnayn Soomaa. bil ma badnayn, laakiin waxa qaabku uu yahay dadka in qancin wax la qanciyo, in lagu qanciyo hataa bil ama maalin, hataa haddii la yiraahdo wax kastoo la yiraahdo ummaddu waxay u baahan tahay qancis in la qanciyo oo wixii si cad loogu bandhigo oo ay noqon yani guddiga kani inuu yahay ku meel gaar, waliba inaan madaxweyne iyo waxaas lagu magacaabina la yiraahdo guddiga ku meel gaar, gudoomiye hebel baa waa digadaas ninkaas haya ku meel gaar ahaan, isla markaana waqtigaas la laysu yimaado. bil baa tiriye ka badan ba waa la oran kari. kaliya waxa weeye iyadoo aan dadkii qaybta ku lahaa aan sidii habooneyd loo wada wargelin in yani madaxweyne lagu dhawaaqo, aniga ilama qumanayn. hase yeeshee mucaaradada ugu weyn ee soo waajahday doorashada Cali Mahdi Maxamed waxay ka timi inta badan hogaamiyayaasha jabhadaha mucaaradka. Generaal Jaamac Maxamed Qaalib oo hore ula soo shaqeeyay dawladdii Maxamed Siyaad Barre haatanna buuga ka qoray
xukuumaddaasi milatariga ayaa v o e da uga warramay sababta ay jabhadda mucaaradka ay uga soo horjeesteen doorashada cali mahdi. sababta waxay ahayd aidiid qoladii USC-da la oran jiray xamar joogtay markii alla yarxamo ninkii hogaaminaya baa dhintay. horta ayaan daraa dhacday ninkii waxaan hogaamin lahaa cid walibana ay ogolayd Ismaaciil Jimcaali la oran jiray baa dhintay. markaa qoladii Ismaaciil Jimcaali guddigiisa ka mid ahayd aidiid bay diidanaayeen. aidiidna Ismaaciil Jimcaali u yeedhay intuu Ismaaciil Jimcaali alla yarxamo iga sheekeeyey markii USC-da sameeyeen. markii Ismaaciil Jimcaali dhintay aidiid wuxuu soo arkayay ninka keliya oo hawiyaha oo dhaxli karaa ama USC oo dhaxli karaa Ismaaciil Jimcaali inuu asagay. marka qoladii kale guddiga Ismaaciil Jimcaali madaxda u ahaan jireen waa diiday. marka xukunka cali mahdi loogu dhawaaqayo aidiid baa laga degdegsanayay baan anigu u arkaa. marka dhibaatadaasayna keentay dee ururadii iyagoo intaas way dagaalamaysa urur keligii Soomaaliya oo dhan dawladda uma samayn karin. marka qaladka ugu qaldaadka dhacay bay ka mid ahay. marka iyadoon lagala tashan guddigii USC oo Ismaaciil Jimcaali guddigii madaxda u ahaan jiray marka allah yarxamo Xuseen Bood baa madax u ahaa inay madaxweyne iska doortaan taasay sababtaasay ku diideen. laakiin waqtiga xilka loo dhibay waxay ahayd muddo hal bil ah bil ka bacdina in shir qaran la isugu yimaado madaxweyne la doorto. muddada loo dhiibay waxaan u helayaa bil iyo waxba laguma sheegin saan xusuusnahay. guddigii kowkaskii USC-da keliya baa doortay cali mahdi. markaa shirgaa fadhiyey la oran jiray sulx. marka madama la rabay in xal la gaadho oo magaaladana maydaadsano midka la iskaantaado lagama hor imaan magaalada xamar wixii joogay waxa la yidhi shirka keena laydin ansixiye. shirka keena waa loo ansixiyey matala iyo muddo loo qabtay. markii khilaafkii batay ay diiday Axmed Cumar Jees diiday oo SNM diiday ayay markaa yiraahdeen February shay kare hab ayay dib isugu noqdeen. waxay yiraahdeen February aan loo balay shirka la isugu yimaado marka waxa la doorto. tii markaa laguma raacin runtii taas iyada anigoo yaddan ka midnay hawl weyn baan ka galay in iyo la yimaado taa marabay yani qaladkoodii garteen ay yiraahdeen miiskay saaran tahay. laakiin waa la diiday dadkii oo dhan cidima imanin meeshii. walaalo iyo dhibaatooyin hadda waa jireen oo dhul aan dad aan iman karaynin oo badnaa oo aan laga maarmi karin haddana iman karaynin oo way jireen sida yani gobolada bari oo kale iyo marka saasay wax ku hagaagi waayo. doorashadii cali mahdi waxay kaloo sii xumaysay loolankii dhinaca awoodda ee u dhexeeyey hoggaanka siyaasadda iyo kuwa milatariga ee jabhadda USC oo iyadu haysatay magaalada muqdisho lafdhabarna u ahayd doorashadii cali mahdi maxamed. waxaa soo baxday inay jiraan 3 garab oo ka wada tirsan ururka USC oo mid fadhigiisu ahaa magaalada Roma midna muqdisho halka kan kalena uu hogaaminayay Generaal Maxamed Faarax Aydiid. Cusmaan Xasan Cali Cusmaan Caato oo ka mid ahaa ragga ay isku dhawaayeen Generaal Maxamed Faarax Aydiid ayaa iiga warramay sida ay uga soo horjeesteen doorashadii cali mahdi. cali mahdi ayaa la doortay waan idaacadda ka maqlay waxaana ay ahayd wax aan loo dhammayn wax weeg ayay ahayd. haddii laysi sugi lahaa oo ciidamada soo gelaya iyo nimankii odayaasha ahaa ee joogay ay isi sugi lahaayeen waxba aad moodaa in ay ka suuragal noqon lahayd ee dawladii ay dhismi lahayd. aawid u eg niman waxboob u socda oo taba aan loo dhammayn raba inay fuliyaan. raggaasna waa ragga talada la dhaqaaqay oo dhanka la aado. maxaa lagu qaybsamay oo lagu kala tegay? hebel baa kooxdeenna ah USC-dii dhabta ahayd iyo kooxdeenna ah waxyaaba caynkaasa ayaa lagu qaybsamay. doorashada cali mahdi waxay la kulantay caqabad kale oo xoog leh oo kaga timi dhinaca ururka SNM. ma aha wax qarsoon in saraakiisha SNM ay si weyn uga niyad jabeen doorashadii degdeg ahayd ee cali mahdi sida uu ku warramayo Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsanaa saraakiisha SNM haatana ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee talada Somaliland haya. horta xamar wixii ka dhacay cali mahdi lagu doortay SNM shaqo kuma lahayn iyaguna nama soo jeedin ma oran waxaan wadisanaa. annaguna waxaan ku jiray markaa nabadeyntii iyo dadkii halkan ku jiray badbaadintooda iyo annaga shirarkayagii. marka cali mahdi doorashadiisa waxba nagama khusaynayn. isaguna cali mahdina berigaa khalad baa u galay oo wuxuu halganku wuxuu ka soo bilaabmay gobolada dhexe oo wixii ka horreeyay wuu iloobay. taa lafteeduna dee erey meesha ku habboon may ahayn. marka arrintaasi waxay khusaynaysay muqdisho ee raggii joogay. 18 bishii May 1991 shirweynihii golaha dhexe ee ururka SNM ku yeesheen magaalada Burco ayaa lagaga dhawaaqay in deegaanada Soomaaliya
ee uu hore u gumaysan jiray dalka Britain ay gooni isku taagtay kana baxday midnimadii ay sanadkii 1960kii la gashay koonfurta Soomaaliya oo uu hore u gumaysan jiray Talyaanigu. Gudoomiyihii SNM Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur ayaa loo doortay inuu muddo 2 sano ah madaxweyne u noqdo maamulka cusub ee Somaliland. burco SNM goleed dhaxawshay xamar markaa oo ku dhawaaqay ninka Cali Mahdi inuu madaxweyne yahay oo gobolada dhaxay ka soo bilaabay hawsha maxaa la yeelay waxa lagu heshiiyay inaga iyo walaaladeena Talyaanigu gumaysan jiray koonfur laba dawladood 60 maantana burburbar oo kuwa iyagu dawladda ku dhawaaqay inaguna dagaal dheer bay nagu qaadatay inaan dalkan dabtarisi gacanta soo galin dhiig badan iyo daal badan oo ku soo celin talada gacanteena walaaladeena waa kuwa inoo fudeeyay dawladda ba dhistay halka waxa inoogu dhamaatay labadii dawladood 60 soo tagay oo la kala noqonay teeniyo gaar gashanayna cudur iyo buuqda ay soo qabnaa walaalada Soomaaliya hore waa inuu wadahay bal markaa mar hadii burburkaas dhacay inagu teeni aan la baxsano oo aan dhisano dawladeena oo dawladda waxaan ku dhamaan go'aankaas qalbisamaan go'aan soo raacay dhamaan waan ku sheegay cadu saraxday salaadiinta ka soo qaba laascaanood oo dhan mid ka maqnay kuwa baran jooga ay ka maqnay kuwa booramiya seeracna kama hebel ka maqnay xataa salaadiinta imika soo horjeeda ee hebel iyo hebel wada dhamaantood way joogeen siyaasiyiinta wixii markaa iman karayo wada badan oo qaar badan oo imika arrinta diidan way joogeen golaha SNM-na waaba u dhamaa saasaan Soomaaliland maanta u kala maqleen oo heshiiska iyo balka kooda gashay marka ka hor 18kii May ka hor fursadaha iyo maxaan ku idhaahdaa masiirka siyaasadeed waa laga baarandegay hadda dib u akhriyo xitaa dadkii SNM soo halgamay way jireen in badan oo dadka halganka ku jiray dhamaantood aan kala 80% inay u socdeen in Soomaaliland dawlad xor noqoto laakiin meel Soomaaliland intay isugu timin haraa ka fadhiisatay halkaas ka wad waayo awdal iyo laascaanood iyo baranibad marka halganka way ka maqlaan waa kuwa iska soo jeeday laakiin halkii ay isugu yimid kula qaateen ee arrinta la isla gartay ee la isku waafaqan qof uri diidin hadduu suldaan yahay iyo hadduu sheekh yahay iyo hadduu siyaasi yahay burcay Muuse Biixi Cabdi waxa uu qiray in doorashada Cali Mahdi ay qayb ka ahayd sababaha ku qanciyay in ururka SNM ay goostaan waa markii ugu horeysay SNM ay gooni isu taageeda qayb ahaan la xiriiriso doorashadii Cali Mahdi Maxamed qodobkaasi uu ku ahaa lug arrinta goosay dhanbu ka dadajiyay iyada oo dadka intiisa badan markii halganka lagu jirayba ay u socotay in Soomaaliland dawlad gaar ah noqoto ase aan inta fagaara la isku yimid go'aan lagu wada qaadan iyadoo burca la fadhiyo oo goboladii kala maqnaa ee dagaalka iska soo jeeday isku yimaadeen oo aan wali arrinta la gudagelin ee arrintii qayrinta la rofagayo ayuu Cali Mahdi ku dhawaaqay dawlad markaas waliba ka daruuri haga gruup ka bilaabay gobolada dhexe deetana dad badan baa arrintaasi caro iyo ku kordhisay xamaasad ah oo maxaa sugaysan deerin ku wuxuu dhamaystay General Jaamac Maxamed Qaalib waxa uu VOA-da u sheegay inaysan ku qornayn axdiga SNM kala goynta dalka laakiin doorashada Cali Mahdi Maxamed ay ahayd tallaabadii ugu dambeysay ee sii riixday Somaliland waxaan filayaa waxay ahayd mishaarkii ugu dambeeyay ku dhufatay waa gartay marka wuxuu ahaa macnaa qodobkii ugu dambeeyay ee gabiga ka sii tuuray Somaliland yani taas ahayd runtii wixii ugu dambeeyay haddii hadda aan dhaqsan tahay ilaa haddadan charterkii u dhignaa SNM waxaa ku taalay dalka lama kala goyn karo macnaha ma aha inay iyagu rabeen inaanay kala goynayn inaanay cid kalena u ogolaanin inay kari karaan marka kolley muran waa dhalan lahaa iyo dad lagu soo abaabiyey goosasho oo lagu dagaalgeliyeyna way jireen laakiin qolada qiyaadada ay fakarkeeda ay qabtay waa ka sinaayeen runtii waan wada arkay sinaayo badan baan wada hadalay cabdiraxmaan tuur waa ogaa saleemaan gaal waan ogaa ismaan jaamaca isaga markii dambe wallahi wala boosay uba khilaafay yani way badnaayeen ragga qiyaadada oo dhan waan ogaa waxay ka sinaayeen inaan la kala goyn laakiin guub kale waa jiray oo dadweynaha ka jiray marka suu ku dhamaan lahaaba waxaa iska maraacisay oo qoladii qiyaadadana gacmaha ka xidhay go-aanka markaa muqdisho ka dhacay markii Cali Mahdi loo doortay madaxweyne iyagoo aan laga kala gelin